رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عادني الله إيانا وإياكم من الفتن والضلالات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، waxaynu baryahan kusoo guda jirnay rabadaanta, duruusu rabadaan iyo axwaalaheeda iyo nidaamkeedaan kusoo guda jirnay. maantana waxaynu qaadan doonaa insha allah biidni illahi tacaala haddii ilahayna karsiiyo nasaa'ixu lissaa'imiin, nasteexada loo nasteexaynayo ama magaranaysaa talada lala talinayo dadka sooman. marka anigoo naftayda iyo naftiinaba idinku baraarujinaya waayaynu qaadan doonaa darsigan biidni illaahi tacaala. allana wuxuu leeyihiin, culimmaduna waxay leeyihiin radia allaahu canhum raximahum allahu tacaala, ilaahay raalliha ka noqday, waxay culimmadu leeyihiin: ixfadu sawmak min azuuri wallaqwi waalfaxsh, iyagoo ka dhambaal qaadanaya xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam. culimmadu waxay kugu baraarujinayaan inaad ka ilaaliso soonkaaga, ood ilaaliso soonkaaga ood ka ilaaliso min azuur. zuurka maxaa loo yaqaanaa? alaa ina qowla zuura buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. qowlka zuurka xun waxa weeyaan waa namiimnimada, waa been abuuradka, waa shay kastoo xun oo qowl ah ayaa zuur la yidhahdaa. wallaqwi, iyo hadalka laqwiga ee maalayacniga ah ee inuu wakhtigu kaa lumiyo wakhtigiisa lagugula xisaabtamo mooyaane wax faa'iidaa kaa soo gelaynin. ama laqwi xunoo dembi kuugu jira ha noqdo, ama laqwi ugu yaraan wakhtiga kaa lumiya ha noqdee. waalfaxsh, iyo xumaan, walciyaadu billaah, inaad dhex gasho, intaaba soonkaaga ka ilaali. waxaasib nafsak cala alacmaali jawaarixak, oo naftaada xisaabi, una xisaabi camaladay samaynayaan jawaarixdaadu. qalbigaagu camalkuu samaynaya xisaabi, indhahaagu camalkay samaynayaanay arkayaanay eegayaan xisaabi, dhagahaagu camalkay maqlayaan ay dhegaysanayaan xisaabi, carabkaagu xisaabi, wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu ku waramayo ku xisaabi. lianna maxaa yeelay yoom min alayaam baa lagu xisaabin doonaa. soonkaaguna ilaahay agtiisa xa ka noqon maayo haddii aad xisaabi weydo ood ilaali weydo. marka maxaa inoo caddaynaya arrimahaas? haddaba faqad xaqiiqadii waqaala rasuululahi sal alla alay wasalam, dhab ahaan rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam: man lam yadac qowla azuur waalcamala bih falaysa lilaahi xaajatun fiih an yadaca طacaamahu wa sharaabahu.
qofka sooman ee aan ka tegin oon iska ilaalinin oo aan ka fogaanin camalka qowlka zuurka, hadalkii xumaa ee zuurka ahaa, ama been abuurad ha noqdo, ama markhaati beena ha noqdo, ama ha noqdo magaranaysaa xan iyo balaayo ha noqdee, walcamalu bih, iyo camalkiisa oo marnaba aanu ka hadhin hadday noqoto, ama bishii rabadaan ha noqoto ama bilo kale ha noqotee. bishii rabadaanna way ugu sii daran tahay haddii markaa uu arrinkaa ku dhaqmayo. falaysa lilaahi xaajatun, ilaahay xaaja ugama laha ama ilaahay danka ma laha fii ayn markaa soomkaa gudihiisii ama maalintaa uu soomay dhexdeeda an yadaca dacaamahu wa sharaabahu, inuu ka tago cuntadiisii iyo sharaabkii iyo cabitaankuu cabeeyey iyo xaajadiisii kale inuu ka tago. ilaahay danka ma laha marba hadduu arrimaha ka tegi waaye, uu carabkiisii ilaalin waaye, uu dhagihiisii ilaalin waaye, uu indhihiisii ilaalin waaye, uu qalbigiisii ilaalin waaye, ilaahayna danka ma laha ayay noqonaysaa marka. waxaa kaloo xadiiskaa wax soo saaray rawaahu bukhaari baa soo saaray. waqaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam, rasuulku wuxuu kale xadiis kale ku yidhi, ruba saa'imun laysa lahu min asiyaami ila juuc, badanaa qof sooman oo soomkiisaas aan wax kale ka faa'iidaynin ila juuc, gaajo mooyaane. waruba qaa'imin, badanaa mid istaagaya oo u istaagaya ilaahay dartiis, yidhi ilaahay dartii baan u istaagaya oo salaad baan tukanayaa leh, oo haddana salaada uu tukanayo iyo arrintaa uu samaynayo aan u ahayn laysa lahu min qiyaamihi ila sahr, aanu ka sugnaanaynin ama aanay u ahaanaynin wax khayra ilaa iyo soo jeed uu ku dhammaystay wakhtigiisa mooyaane. waxaa markaa loo baahan yahay oo markaa meeshaas inala gudboon oo aynu rabnaa inaynu ku dhaqanno ama aynu ahaano kuwa ku toosanaada hadalkii rasuulka iyo hadalkii ilaahi subxaanahu watacaala, inaanay noqonin salaadeenaasi mid daal iyo soo jeed inoo faa'iidaysa oo keliya oo inaan ajar iyo xasanaad ka helin. soomkeenaasi mid gaajo iyo haraad inoo faa'iideeya oo inaan ajar iyo xasanaad ka helin iyo inaanay inaga noqonin. haddii aynu rabno inaynaan ajar iyo xasanaadkeena aynaan waayin hadday noqoto oo aynu ku dadaalnana, waa inaynu ka hadhnaa hadalkii zuurkaha, waa inaynu ka hadhnaa laqwigii, waa inaynu ka hadhnaa faxshigii, waxaasoo dhanba waynu ka hadhnaa. allana subxaanahu watacaala markaa wuu inoo xisaabinayaa biidni illaahi tacaala. oo ilaahay isaga ayaa ummaddiisaba u ballanqaaday sian hore usoo tilmaamnay inuu soonka isagu ka abaalmarinayo oo cid kale weliba aan ugu dhiibaynin. rawaahu axmed wa ibnu maaja. ibnu axmed iyo waxaa soo warinaya iyo ibnu maaja warinaya, saxiixogeeda ku warinayaan. waqaala jaabir bin cabdillaahi radia allaahu canhu, asxaabigii jaliilka ahaa jaabir bin cabdillaahi ilaa raaliha ka noqda, waxa uu leeyahay idaa sumta falyasum samcak, war haddaad doonaysa inaad soomto ay soomkuu dhabkaa yahay, waa in aad ka soomtaa dhagahaaga, wa basarak, waa inaad ka soomtaa indhahaagii, wa lisaanak, carabkaaga waa inaad ka soomtaa can ilkadabi waalmuxaarim, shay kasta oo been ah oo been abuura ama aad been loogu dhowaan karayo waa inaad ka dheeraataa. wax kastaoo maxaarim ah dhagahaagaa ku dhagaysan, indhahaagana ha ku eegin, caqligaagana ha ugu fikirin. waxaa soo saaray qowlkaasna akhrajahu ibnu shayba fii musnafi ayuu ku soo saaray mujalada 422 raqamkeeduna uu markaa yahay 8852 ayaad ka heli kartaa insha allah biidn illahi tacaala. waxaa kale meesha haddaba aynu ku qaadanaynaa ibtacida can ilkhisaam, waxaad ka dheeraataa dooda iyo dagaalka waxyaalaha keenaya iyo muranka waxa keenaya. faqad qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam,
nabi maxamed wuxuu calayhi salaatu wasalaam waidaa kaana yowmu saa'im axadukum hadduu yahay midkiin inuu maalin sooman yahay falaa yarfath walaa yaskhab yaanu xumaan dhex gelin oo dembi iyo dunuub yaanu dhex gelin, aanu ku dambaabin, si ajarkiisa loogu abaalmariyo oo ajarkiisa ilaahay subxaanahu watacaala buur ugu dhigo. walaa yaskhab wax magaranaysaa ummadda carigale iyo dagaal iyo muranna ha ka dheeraado. rawaahu albukhaari walmuslim. waxaa kale culimmadu leeyihiin walow sabaka haddii uu ku caayo axadun axad aw khaasamaka ama uu kula murmo, uu kula doodo oo doodaas ay laga yaabo inay dhib kaleba ay keento, falaa taruddu calayh ha ka radiyin hadalkiisaas. oo inuu murankaa uu kula soo doontay shaydaan baa kuu soo adeegsaday, ila shaydaamadii waaweynaa unbaa la xidho ku yaraa way xidhan yihiin, ha ka radiyin hadalkiisaas ilaa bikelima kelima mooyaane oo ah innii saa'im anu waan soomana kale iska dheh, iyagoo ka dhambaal qaadanaya ama tiix raacaya hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. rasuulku muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, wain imru'un qaatalahu haddii uu qof uu kula dagaalamo aw shaatamahu ama uu kula caytamo, falyaqul waxaad tiraahdaa innii saa'imun anugu waan soomanahay. rawaahu albukhaari baana warinaya xadiiskan. marka xaggaa waxaynu ka faa'iidnay iyadana in aynu qofka aynaan markaba sidaynu doonno aynaan ka yeelin, jawaabtii uu doonaba aynaan siinin, hadalkuu yidhaahdaba aynaan sii dhadhansanaan sii tixraacin, oynu eegnaa waxa aynu ka faa'iidayno hadalkiisa iyo aamuskiisa inaad ka faa'iidayso 100% waa kuu caddahay, ajarkaaga kaa nusqaami maayo, shaydaankii iyo naftaadii waad ka adkaato, waad xabistay oo cadhadeedii iyo magaranaysaa hugunkeedii baad ku xabistay, dhib iyo dhibaato ay soo kala gaari lahaydna waad iska xabistay. marka ilaahay subxaanahu watacaala haynaga dhigo kuwii kuwaana qaata, kuwii alla subxaanahu watacaala oo amarkooda ilaahay subxaanahu watacaala taladooda uu ilaahay uu saaro maalinta ilaahay miisaanka xasanaadka u saara allah inaga yeelo. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك ورحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك ربنا واسمه تعالى جدك ولا إله غيرك الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.